Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabada daawadayaal idil ahaantiinba kusoo dhawaada channelka walaashiin Umu Samiira. Channelka haddaad ku cusubtahay subscribe noo saar, dad hore noola joogtayna like, share and comment. Markasta soo dhawaada baan idin leenahay. Haddaba daawadayaal, sidaynu la wada socono, biri waxaa inoo bilaabmaya 10 maalmood ama bishii Dulxaj ayaa biri kowsanaysa oo Axad ah. markaa sidaan la wada socono, bishan Dulxaj waa bisha muslimiintu ay xajka soo gutaan, waana bil ka mid ah bilooyinka xurmada leh bilaha afarta ah ee xurmada loo yaqaan bilaha islaamka. waa bil ka mid ah. haddana bishan 10keeda cishe u horeeya waa 10 casho oo aad muhiim ah. waa 10ka cashe ee uu Ilaahay ku dhaartay isagoo quraankiisa inoogu sheegaya wal fajr walayaalin cashr, markuu Ilaahay quraankiisa ku dhaaranay 10ka casho. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo sheegay inaanay jirin maalmo uu Ilaahay ka jecel yahay oo acmaal wanaagsan la sameeyo 10kan casho ee Dulxaj ugu horeeya. sidaa daraadeed waxa aan jeclaystay inaan idinla wadaago 10 cibaado oo ay tahay qof kasta oo islaama inuu uga faa'iideysto. waata koowaad bishan sidaan magaceeda ka wada aragno waa bishii xajka, inuu qofku uu xajka soo guto waa qofkii awooda. sidoo kale waxyaalaha aynu uga faa'iideysan karno waxa weeye in qofku uu soomo intii awooda inay soonto, oo bishan 9ka casho horeeya maalinta tobnaad waa ciidii bay ku beegan tahay, la soomo. waayo maalin kasta fadli gaara ayay leedahay. maalinta 9aad waynu ognahay yoomul carafa la taagan yahay. waxa weeye waa maalinta dadka sooma labadii sanadood ee lasoo dhaafay dembigooda laga cafin doono ama loo dembi dhaafi doono labadii sano ee qofkaas soo dhaafay dembiyadu galay oo dhan. sidoo kale waxa weeye in dikriga la badiyo oo maxaan ku dhahay tasbiixda iyo taxmiidda, istighfaarta, saliga nabiga, in dadku ay aad u badiyaan masaajidada in la camiro, oo qofkii aan masaajid tagistiisu aanay badnayn uu maxaan ku dhahay masjidka xilli hore qadimo oo uu tago. dumarkuna guryahooda salaad kasta xilligeeda ku oogaan. sidoo kale waxa weeyaan in sunayaasha la badiyo oo salaad kasta sunayaasheeda aad tukato, waa maadaama aynu uga faa'iideysanayno acmaasha wanaagsan ee maalmahan. markastaba iyadoo tahay in qofku dee uu sunayaashiisa iyo cibaadadiisa iska badsado. quraan akhriska in aad loo badiyo 10kan casho, inaad sadaqada ula baxo qofkii awoodi kara isaguna. sidoo kale qiyaamuleylka ama salaatuleylka in loo kaco oo Ilaahay la baryo maalmahan iyadoo aynu uga faa'iideysanayno. in maalinta 10aad ee ciidka udxiyada la qalo ciddii awooda. acmaashii kale wanaagsan ee qofku la imaan karana in la sameeyo, sidii in waalidka loo samafalo, maxaan ku dhahay jaarka la ilaaliyo, aqraabada la xiriiriyo, ay acmaal oo ku dhaweyn karta Ilaahay oo wanaagsan inaynu uga faa'iideysano oon 10kan casho la dhayalsanin. Ilaahay kuwii ku simo ee ka faa'iideysta Ilaahay naga wada yeelo. dadka intii nasiib u yeelata nasiib ayay leedahay. Ilaahay hay naga yeelo kuwii nasiib u yeesha ee welibana ka faa'iideysta Ilaahay fadligooda uu garansiiyo. aad baan idin salaamayaa. fideogana la sii share gareeyo. acmaashii wanaagsan ee kasteed is leedahay 10ka casho waad ka faa'iidi karaysaana ha la sameeyo. aad baan idin salaamayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.